أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaan rabaa inaan ugu tacsiyay masiibadii nagu habsatay 25 sano oo la soo dhaafay Soomaalida meel kasta ay joogto. Dhibaatadaas way gaartay. Waxaan rabaa inay ku samraan Ilaahay dartiis. Ilaahay wuxuu u keenay waxaan ahayn uma iimaanayaan waxaan annaga isu keenay kaliya waaye. Ilaahay aytiis wuxuu ku yiri ma asaab min musiibatin fa bima kasabat aydihim. intaas markaan ugu baxo tacsiyantii waxaan rabaa halkan maanta inaan ka xuso magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Afkuul Ibrahim. waxaan ahay musharax u taagan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo labadaas gobol ay taariikh weyn oo fog ay ku leeyihiin ummadda Soomaaliyeed. gaar ahaaneed labadaas gobol waa laba gobol oo qiimo weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed, sharafna leh. waxaan rabaa maanta musharaxnimadaas uma aan soo istaagin in aan iska soo istaagin ma aha. dad badan markay wada fariisteen ayay xilkaas ila jeclaadeen inaan aniga qabto qofkii markaan ku habboonayna ahay. waxaan halkan ka xusayaa in labadaas gobol ay waayeen wax hoggaan la dhahayo 25 sano oo la soo dhaafay. waxaan rabaa halkan maanta inaan ka caddeeyo haddii Ilaahay ii qadaro oo aan musharaxnimadaas ku guuleysto 4 shay inaan ka ballan qaado inaan u qabto Ilaahay idinkiis ugu waaweyn. number 1 waa cadaalad. cadaalad darro waa Soomaaliya meel kasta aan joogno waxa halkan na keenay in aan cadaalad u falo Ilaahay idinkiis, qabiilna la fogeenin, midna la soo dhaweysanin. Ilaahay idinkiis waa ballan. dadkaasna aqoon ay leeyihiin darteed ayay xilkan igu soo dhaweeyaan. mid labaad waxbarasho la'aan. ummaddu haddayna waxba aqoonin waa dhibaato. maalin dhaweeyto waxaan la kulmay nin Singapore ah oo dhakhtar ah. wuxuu ii sheegay 1980 wixii ka horreeyay most corruption country inuu ahaa. 3 diin oo kala duwan inay meeshaas oo qowmiyad kala duwan inay ku nooshahay. maanta wuxuu ii sheegay 80% plus inay dadka aqoon-yahan ay yihiin. Ilaahay idinkiis cudurku ugu weyn waa aqoon darrada inaan gaarsiiyo labadaas gobol aqoontoodii intii dib ugu dhacday 25 sano. Ilaahay idinkiis ayagana inaan gaarsiino insha Allah bidinlaahi kariim. midda saddexaad inaan shaqo u abuurno ummadda Soomaaliyeed. shaqada uma abuureyno inaan just qofkii aanan xaq u lahayn ama aqoonteeda lahayn in aan siino waa maya. qof walba job training loo sameeynaya, shaqada uu leeyahay waa loo training gareynaya, kadibna shaqadaas waa lagu xushmeynaya, waa lagu karaameelaya, waana lagu taageeraya Ilaahay idinkiis. qof walba oo labadaas gobol u dhashay in uu shaqo helo ama uu bacmushtarkiisa noqon karo ama uu xoolihiisa ku dhaqan karo ama beerihiisa uu falan karo Ilaahay idinkiis. tan afraad corruption. Soomaaliya corruption ayaa halkan soo gaarsiiyay. absolutely corruption waa ka mamnuuc labadaas gobol. mana dhici doonto. aniga ugu sareeyo musharaxnimada haddii ku guuleysto waxaan leeyahay mishaar iyo go'aan ayaan leeyahay. qof walba oo cabinetkayga ku jirana waxaa ballan ah inuu mishaar ku filan inuu helo si uu ugu waantoobo in ummadaas hantidooda uusan damcin xataa. mana dhici doonto in la damco Ilaahay idinkiis. annagoo islaam ah oo muslim ah ayaa haddana maanta most corruption adduunka number 1 aan ka galnay. annagoo wadankeena source bad hadii la dhahay, hadii bari la dhahay, hadii xoolo la dhahay, hadii minerals la dhahay, number 1 adduunka aan nahay. haddana waxaan noqon wadanka adduunka ugu gaajisanaa noqon. waana waxaan dhici doonin Ilaahay idinkiis, gaar ahaan labadaas gobol. Ilaahay idinkiis. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. waxaan rabaa inaan ugu tacsiyay masiibadii nagu habsatay 25 sano oo la soo dhaafay Soomaalida meel kasta ay joogto. dhibaatadaas way gaartay. waxaan rabaa inay ku samraan Ilaahay dartiis. Ilaahay wuxuu u keenay waxaan ahayn uma iimaanayaan waxaan annaga isu keenay kaliya waaye. Ilaahay aytiis wuxuu ku yiri ma asaab min musiibatin fa bima kasabat aydihim. intaas markaan ugu baxo tacsiyantii waxaan rabaa halkan maanta inaan ka xuso magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Afkuul Ibrahim. waxaan ahay musharax u taagan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe
oo labadaas gobol ay taariikh weyn oo fog ay ku leeyihiin ummadda Soomaaliyeed. gaar ahaaneed labadaas gobol waa laba gobol oo qiimo weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed, sharafna leh. waxaan rabaa maanta musharaxnimadaas uma aan soo istaagin in aan iska soo istaagin, ma aha. dad badan markay wada fariisteen ayay xilkaas ila jeclaadeen inaan aniga qabto qofkii markaan ku habboonayna ahay. waxaan halkan ka xusayaa in labadaas gobol ay waayeen wax hoggaan la dhahayo 25 sano oo la soo dhaafay. waxaan rabaa halkan maanta inaan ka caddeeyo haddii Ilaahay ii qadaro oo aan musharaxnimadaas ku guuleysto 4 shay inaan ka ballan qaado inaan u qabto Ilaahay idinkiis ugu waaweyn. number 1 waa cadaalad darro waa Soomaaliya meel kasta aan joogno waxa halkan na keenay in aan cadaalad u falo Ilaahay idinkiis, qabiilna la fogeenin, midna la soo dhaweysanin. Ilaahay idinkiis waa ballan. dadkaasna aqoon ay leeyihiin darteed ayay xilkan igu soo dhaweeyaan. midda labaad, waxbarasho la'aan. ummaddu haddayna waxba aqoonin waa dhibaato. maalin dhaweyd waxaan la kulmay nin Singapore ah oo dhakhtar ah. wuxuu ii sheegay 1980 wixii ka horreeyay most corruption country inuu ahaa. 3 diin oo kala duwan inay meeshaas oo qowmiyad kala duwan inay ku nooshahay. maanta wuxuu ii sheegay 80% inay dadka aqoon-yahan ay yihiin. Ilaahay idinkiis cudurku ugu weyn waa aqoon darada inaan gaarsiiyo labadaas gobol aqoontoodii intii dib ugu dhacday 25 sano. Ilaahay idinkiis ayagana inaan gaarsiino insha Allah bidinlaahi kariim. midda saddexaad, inaan shaqo u abuurno ummadda Soomaaliyeed. shaqada uma abuureyno inaan just qofkii aanan xaq u lahayn ama aqoonteeda lahayn in aan siino, waa maya. qof walba job training loo sameynaya, shaqada uu leeyahay waa loo training gareynaya, kadibna shaqadaas waa lagu xushmeynaya, waa lagu karaameelaya, waana lagu taageeraya Ilaahay idinkiis. qof walba oo labadaas gobol u dhashay in uu shaqo helo, ama uu bacmushtarkiisa noqon karo, ama uu xoolihiisa ku dhaqan karo, ama beerihiisa uu falan karo Ilaahay idinkiis. tan afraad, corruption. Soomaaliya corruption ayaa halkan soo gaarsiiyay. absolutely corruption waa ka mamnuuc labadaas gobol, mana dhici doonto. aniga ugu sareeyo musharaxnimada haddii ku guuleysto waxaan leeyahay mishaar iyo go'an ayaan leeyahay. qof walba oo cabinetkayga ku jirana waxaa ballan ah inuu mishaar ku filan inuu helo si uu ugu waantoobo in ummadaas hantidooda uusan damcin xataa. mana dhici doonto in la damco Ilaahay idinkiis. annagoo islaam ah oo muslim ah ayaa haddana maanta most corruption adduunka number 1 aan ka galnay. annagoo wadankeena source bad haddii la dhahay, haddii beri la dhahay, haddii xoolo la dhahay, haddii minerals la dhahay, number 1 adduunka aan nahay. haddana waxaan noqon wadanka adduunka ugu gaajisanaa noqon. waana waxaan dhici doonin Ilaahay idinkiis, gaar ahaan labadaas gobol. Ilaahay idinkiis. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. waxaan rabaa inaan ugu tacsiyeyo masiibadii nagu habsatay 25 sano oo la soo dhaafay Soomaalida meel kasta ay joogto. dhibaatadaas way gaartay. waxaan rabaa inay ku samraan Ilaahay dartiis. Ilaahay wuxuu u keeno waxaan ahayn uma imaanayaan, waxaan annaga isu keenay kaliya waaye. Ilaahay aytiis wuxuu ku yiri ma asaab min musiibatin fa bima kasabat aytihim. intaas markaan ugu baxo tacsiyantii waxaan rabaa halkan maanta inaan ka xuso magacayga. waxaa la yiraahdaa Maxamed Afkuul Ibraahim. waxaan ahay musharax u taagan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, oo labadaas gobol ay taariikh weyn oo fog ay ku leeyihiin ummadda Soomaaliyeed. gaar ahaaneed labadaas gobol waa laba gobol oo qiimo weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed, sharafna leh. waxaan rabaa maanta musharaxnimadaas uma aan soo istaagin in aan iska soo istaagin, ma aha. dad badan markay wada fariisteen ayay xilkaas ila jeclaadeen inaan aniga qabto qofkii markaan ku habboonayna ahay. waxaan halkan ka xusayaa in labadaas gobol ay waayeen wax hoggaan la dhahayo 25 sano oo la soo dhaafay. waxaan rabaa halkan maanta inaan ka caddeeyo haddii Ilaahay ii qadaro oo aan musharaxnimadaas ku guuleysto 4 shay inaan ka ballan qaado inaan u qabto Ilaahay idinkiis ugu waaweyn.
number 1 waa cadaalad darro waa Soomaaliya meel kasta aan joogno waxa halkaan keenay in aan cadaalad u falo Ilaahay idinkiis qabiilna la fogeenin midna la soo dhaweysanin Ilaahay idinkiis waa ballan dadkaasna aqoon ay leeyihiin darteed ayay xilkan igu soo dhaweeyaan mid labaad waxbarasho la'aan ummaddu haddayna waxba aqoonin waa dhibaato maalin dhaweyd waxaan la kulmay nin Singapore oo dhakhtar ah wuxuu ii sheegay 1980 wixii ka horeeyay most corruption country inuu ahaa 3 diin oo kala duwan inay meeshaas oo qowmiyad kala duwan inay ku nooshahay maanta wuxuu ii sheegay 80% inay dadka aqoon-yahan ay yihiin Ilaahay idinkiis cudurku ugu weyn waa aqoon darada inaan gaarsiiyo labadaas gobol aqoontoodii intii dib ugu dhacday 25 sano Ilaahay idinkiis ayagana inaan gaarsiino insha Allah bidinlaahi kariim mid saddexaad inaan shaqo u abuurno ummadda Soomaaliyeed shaqada uma abuurayno inaan just qofkii aanan xaq u lahayn ama aqoonteeda lahayn in aan siino waa maya qof walba job training loo sameeynaya shaqada uu leeyahay waa loo training gareynaya kadibna shaqadaas waa lagu xushmeynaya waa lagu karaameelaya waana lagu taageeraya Ilaahay idinkiis qof walba oo labadaas gobol u dhashay in uu shaqo helo ama uu bacmushtarkiisa noqon karo ama uu xoolihiisa ku dhaqan karo ama beerihiisa uu falan karo Ilaahay idinkiis tan afraad corruption Soomaaliya corruption ayaa halkan soo gaarsiiyay absolutely corruption waa ka mamnuuc labadaas gobol mana dhici doonto aniga ugu sareeyo musharaxnimada hadda ku guuleysto waxaan leeyahay mishaar iyo go'aan ayaan leeyahay qof walba oo cabinetkayga ku jirana waxa ballan ah inuu mishaar ku filan inuu helo si uu ugu waantoobo in ummadaas hantidooda uusan damcin xataa mana dhici doonto in la damco Ilaahay idinkiis annagoo islaam ah oo muslim ah ayaa haddana maanta most corruption adduunka number 1 aan ka galnay annagoo wadankeena source bad hadii la dhahay hadii bari la dhahay hadii xoolo la dhahay hadii minerals la dhahay number 1 adduunka aan nahay haddana waxaan noqon wadanka adduunka ugu gaajisanaa noqon waana waxaan dhici doonin Ilaahay idinkiis gaar ahaan labadaas gobol Ilaahay idinkiis wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh